السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا AMA Associates. maanta waxaan ka hadlaynaa the adverse impact of tribal conflict ama tribalism, qabyaalada dhaawaca ay ku hayso dhaqaalaha waddanka. saamaynta colaadaha sokeeye ee ku salaysan tribalism, qabyaalada iyo hate crimes, dambiyada isirnacaybka xambaarsan ee ku yeelanayaan dhaqaalaha waddanka. waxaan ku soo koobayaa 7 qodob. qodobka koowaad, disruption of trade and commerce, carqaladayn ku timaada isu socodka ganacsiga, camirnaanta suuqyada iyo kalsooni darro hor istaagta howlaha ganacsiga waaweyn ee caalamka aan la wadaagno. isirnacaybka ay faafinayaan koox yar oo bulshada ka mid ah waxay caqabad ku tahay isdhaafsiga badeecadda iyo adeegga. waxay sababaysaa ammaan darro ku timaada wadooyinka halbowlaha u ah kobcinta dhaqaalaha iyo kala gooshidda xuduudaha gobollada, taasoo gabi ahaanba meesha ka saaraysa economic integration, isdhexgalka dhaqaale ee uu waddanka ku dhisan yahay, waxayna xadidaysaa gelidda suuqyada ka baxsan xuduud beenaadka dadweynihii wax wada qabsan lahaa loo kala asteeyey. qodobka labaad, investment deterrence, carqaladaha qabiiliga ah waxay kaloo dhulka la jaraan investment maalgashiga ka dhexeeya deegaanada dhexdooda iyo kan caalamka. investors, maalgashadayaashu waxay muujiyaan hesitancy, shaki iyo hubanti la'aan, kalsooni darro abuuraysa, taasoo hoos u dhigaysa inay ku dhiiradaan maalgelinta mashaariicda iyo ganacsiga goobaha ka baxsan xuduudaha ay qabyaaladu abuurtay. lack of confidence, kalsooni darradaas waxaa laga dhaxlayaa underinvestment in critical sectors, maalgashi la'aan ku timaada waaxyaha muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha sida infrastructure, kaabayaasha dhaqaalaha, agriculture, beeraha iyo manufacturing, wax soo saarka. qodobka saddexaad, damage to infrastructure, colaadaha iyo carqaladaynta joogtada ah waxay dhaawac iyo burbur xoogan ku keenayaan kaabayaasha dhaqaale sida roads, wadooyinka halbowlaha ah, bridges ama buundooyinka, telecommunication networks, shabakadaha isgaarsiinta, taasoo keenaysa kala joogsi adeegyada ganacsi, isla markaana sabab u noqonaysa sanduuqa dhaqaale ee waddanka inuu ku filnaan waayo dib u dhiska hantida burburtay. waxaana lagu qasbanaanayaa in lagu noolaado nolol hoose, lana iloobo hiigsiga nolol cizi iyo karaamo leh sida wadamada kaleoo ka ilbaxay qabiilka ay ku nool yihiin. qodobka afaraad, impact on agriculture, waxaa kaloo saamayn lixaad leh ku yeelanaysaa beeraha waxay nolol aasaasiya u yihiin bulshada Soomaaliyeed oo dhan, laakiin waxaan lagu guulaysan in la baajiyo carqalado joogto ah oo keenaya crop failure, in dalag nacfi leh la waayo, livestock losses, inay baaba'aan xoolaha nool, food insecurity iyo ammaan darro darteed inay waddanku u awoodi waayo wax soo saar cunno ku filan nolosha dadweynaha, oo caado laga dhigto in kharash hor leh lagu bixiyo cunno laga keenay waddamo kale oo taya ahaan aan ka dhulbeereed fiican nahay. qodobka shanaad, displacement of population, barakac baaxad leh. colaadaha sokeeye waxay keenaan barakac, taasoo sababta bulshadu inay ka kala daataan hantidoodii iyo qaab dhismeedka nolosha ay ku maarayn jireen, soona raadsadaan gargaar bani aadantinimo dhaqaale la'aan darteed. dowladduna waxay ku qasbanaanaysaa inay gargaar u raadiso dadweynihii ay canshuur wax lagu dhiso ka qaadi lahayd. qodobka lixaad, humanitarian cost, kharashaadka loo galayo bini'aadantinimo fidinta. rabshadaha iyo colaadaha qabyaaladaysan iyo isirnacaybka waxay abuuraan significant humanitarian cost, kharashaad lixaad leh sida in loo baahdo emergency assistance, gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah, refugee support, caawin qaxooti iyo peacekeeping operations, howlgallo nabad ilaalin oo laga dalbado wadamada aalaaba aan diin iyo dhaqanba wadaagin, taasoo sii fogeynaysa isfahamka bulshada maadaama ay u kala adeegayaan quwad aan danahooda ka shaqayn ee tuubada mushaarka dhadhan ku haya. dhiigga iyo dhaqaalaha nabad ilaalinta ku baxayana waxay qaan ku tahay jiilka soo socda inay bixiyaan. qodobka toddobaad, brain drain, garaad xaaluf, ammaan darrada iyo deganaan la'aanta isirnacaybka dhalisay waxay sababtaa in cid walboo waxgarad ah oo professional xirfadlo hibo leh ah inuu isaga carraabo waddanka indhaxumo aanan u cuntamayn darteed, isagoo fursad u raadsanaya waddan kale oo xasiloon, taasoo keenaysa waxa loo yaqaano brain drain phenomena
keenna maskax guur ama garaad xaaluf baahsan oo aan laga soo kaban karin. Tani waxay nabaad guur ku keenaysaa waxa ugu qaalisan adduunka ee la ilaashado oo ah human capital, khayraadka raasimaaliga ah ee bini'aadamka. Waxayna hor istaagaysaa dadaalada dib loogu abuurayo shaqaale xirfad leh oo ka shaqeeya horumarinta dhaqaalaha waddanka. Haddii aan soo koobo, qabiil jeclaysiga iyo isirnacaybka aan inta badan la qiranayn waxay ina dhaxal siiyeen isu socodka ganacsiga oo aan si rasmi ah u madax bannaanayn, maalgashiga oo aanan dhaafin ganacsi yaryar, hubanti la'aan darteed in xitaa muwaadinku uu hantidiisu ku aamino waddamo qalaad in yar oo uu ka sabri karo mooye. Damage infrastructure, dhaawac ku yimaada kaabayaasha dhaqaale oo aan in ka badan 30 sano dib loo habayn. Impact on agriculture, beeraha oo aan laga faa'iideysan sidii la doonayay ammaan darro darteed iyo niyad jab ku yimaaday beeralayda goorta dalagooda lagu beego deeqo suuqa lagu soo daabulo si loo yareeyo demand baahida suuqa. Barakac baahsan oo ay adag tahay dib u dejin in lagu guuleysto. Humanitarian assistance, waddan bad bar iyo beerba Allah ku manaystay in la isku fahmi waayo wada noolaansho xasiloon ee laga doorto burbur iyo baahi iyo gacan hoorsi bani aadam. Intaasoo dhan waxay sababtay maskax guur iyo garaad xaaluf ku yimaado dhalinyarada fursad la'aanta darteed. Haddaba su'aashu waxay tahay, dalka yaa iska leh? Muwaadin, haddii ay jawaabtaadu tahay anigaa leh, ka kac hurdada oo la imaaw afkaartii qabyaaladda intaa nagu dhigtay looga aarsan lahaa oo loo suulin lahaa si aan ugu noolaanno nolol qab Soomaaliyeed, sharaf iyo cizi iyo karaamo leh.